Qoys Danyar ah oo ku tabaalaysan duleedka magaalada Dila ayaa waxa uu ka codsaday dadka Islaamka iyo guud ahaanba dadka afka Soomaaliga ku hadla in ay soo caawiyaan. Qoyskan danyarta ee aanu la kulanay ayaa waxa aanu haysanba waxbar iyo beera dameerna Allah ka yeelay. Odayga qoyskaasi ayaa mar aanu la kulanay isagoo magaciisa la yiraahdo Katin Muya ayaa waxa uu noo sheegay inuu muddo 10 sanadood uu ku dhaqan yahay halkani isagoo aan haysan waxa uu cuno iyo beer uu fashaba. dadka deegaanka ayaa waxa ay u soo ururiyaan sadaqo taasi oo uu ku nool yahay. Katin Muya waxa uu ka codsaday dadka Islaamka ah in ay soo gargaaraan wixii kalaamkooga ah. waxa kale oo halkaasi ka hadlay odayaasha degmada Dila kuwaasi oo ku booriyay dadka Islaamka iyo dadka afka Soomaaliga ku hadlaba in ay soo caawiyaan qoyskan danyarta ah. walaalayaal dadkiina dibadda joogay dadkiina khaarijka joogaba waxaanu ka codsanaynaa inaad soo caawisaan reerka arkaysaan aragtidiisa aakhiro waxba la isugu maaha ifka wax la isugu yahay qof walowbana waxaad bixiso ayaa ka horeeya. waxa kale oo halkaasi ka hadashay gabadh la yiraahdo Foosiye Maxtaasi oo u ololeysa dadka danyarta isla markaana u bandhigta bulshada Islaamka iyo dadka afka Soomaaliga ku hadla si ay u caawiyaan. gabadhani waxay dhashay laba mataanood labada mataanood odaygani waa odaygii reerka ka mas'uulaha wax bara iyo wax beera midna ma laha sidaa darteed gabadhan waa arkaysan dabinteedu way caddahay waxa haysan nafaqa la'aan laba mataanood bay dhashay wax u maqanoon Ilaahay ahayna ma jiro waxaan danaynaynaa dadka Soomaaliyeed meelood bay joogan dal iyo dibad. Khadar Maxamed Xasan Xidigta News magaalada Boorama.